bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kulan wareedkii warbaahinta Magan oo aad kala socotaan maalin walba marka laga reebo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah kiisas hor leh oo ku saabsan cudurka coronavirus oo Jimcihii xalay laga helay Muqdisho. xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka oo saakay ku geeriyooday Muqdisho iyo mas'uuliyiin ka tacsiidiyay geeridiisa. dowladda Puntland oo amartay in awood ciidan loo adeegsado xirista goobaha cibaadada ee salaada jamaacada lagu oogo. dowladda Soomaaliya oo jawaab ka bixisay warar been abuur ah oo warbaahinta dalkaasi Kenya ka qoreen hay'adaha nasirdoonka qaranka. iyo muftiga dalkaasi Sacuudi Carabiya oo ku dhawaaqay in masaajidda lagu oogi doonin salaadaha taraawiixda iyo ciidul fitriga. anigoo ismastowsina waan idin warmi doonaa isbuucan. kulan wareedka Magan waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdooyinka arrimaha siyaasadda, warbixino xiise leh, suugaan la soo xulay. waxaa barbaryaal xubinta isboortiska oo ka hadlaysa kulamadii ugu dambeeyay ciyaaraha caalamka. intaasoo kulansan ku dhegayso kulan wareedka warbaahinta Magan, kalena soco page-kiyo channelka idaacadda raadiyo Magan. waxay magan u tahay dhammaan mujtamaca Soomaaliya. tirada dadka qaba cudurka coronavirus oo kobcay kadib war-saxaafadeedka maalinle ay soo saartay wasaaradda caafimaadka. waxaa cudurkan laga baaray 47 qof, waxaana muujinaysaa in 47 qof ee la baaray in laga waayay 11 ka mid ah oo 36 qofna laga helay. dadkan ayaa 27 ka mid ah waxay yihiin rag, halka ay 9 ka midna ay ahaayeen haween sida warbixinta lagu sheegay. tiradan ayaa ina ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyay cudurka coronavirus. bukaanada cudurka in laga helay shalay ayaa 30 ka mid ah waxay da'doodu u dhaxaysaa 20 ilaa 39 sano oo 83% ah, halka 5 ka midna ay da'doodu u dhaxayso 40 ilaa 59 sano oo 14% ah. kaliya hal qof ayaa wuxuu ka weyn yahay 60 sano. waxaa in sii kordhaya in aafada uu sababayo cudurkan coronavirus, iyadoo dalal badan oo qaaradan Afrika dhacana ay la daaladhacayaan sidii ay u maarayn lahaayeen ama ay kaga hortagi lahaayeen cudurkan coronavirus. xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo saakay ku geeriyooday magaalada tan Muqdisho. allah u naxariistay. waxaa saakay in geeriyooday xildhibaan aadan cali xasan jamhuuriya oo ka tirsanaa mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaanka oo deegaan doorashadiisu ay ahayd Hirshabelle ayaa maalmihii dambe la xanuunsanayay cudurka macaanka iyo sidoo kale kaliya xanuun, isagoona ku dhintay isbitaalka Dimeeli ama Digfeer sida ay noo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka. marxuumka ayaa sidoo kale ahaa xogayaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya, waxaana geeridiisa ka tacsiyadeeyay mas'uuliyiin isugu jira in dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. musbaaxdii dunidu Magan weeye warbaahini. Magan Radio oo warbaahin magac dheero malaayiinta islaamkiyo mujtamacaadka dhageystaba waatay ka maqsuudeen oo Magan u wada hambaliyeen. Radio Magan waa idaacad ka hadasha baahinta afkaarta ummadda Soomaaliyeed kooda samaha jecel. Radio Magan
Magan Radio. war ka soo baxay guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 ee Puntland ayaa lagu faray ciidamada amniga inay awood ku dhaqangeliyaan amarkii lagu joojiyay in salaadaha lagu tukado jameecada iyo masaajidda maamulkaasi. Guddiga ayaa sidoo kale amray laamaha amniga inay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan cid kasta oo u hoggaansami weyda dhaqangelinta go'aankaasi. Sidoo kale guddiga ka hortagga coronavirus ee Puntland ayaa qoraalkiisa ku wicneeyay mid lagu dhowrayo badqabka dadka isugu imaanaya masaajidada. Puntland ayaa wada dadaalo looga hortagayo cudurka faafa ee coronavirus kaas oo saameeyay wadamo badan oo ku yaala caalamka. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay kiisas gaaraya 116 qof kuwaas oo haatan lagu karantiilayo magaalada Muqdisho. كما طلب سنة بلسي تعدل هاي تابن ميل قرا هتابن هايستابن وجيغا هتابن تيرتيرو كعما غمربيد تلابا وجرسو ددكا كله هدو كتابنا عيدو تغني تاكورو نفتادا بانو كعما غمربيد تلابا وجرسو ددكا كله هدو كتابنا عيدو تغني تاكورو نفتادا بانو توحيد كعلوم باترتري كراي تلنا إيباغا سارو توحيد كعلوم باترتري كراي تلنا إيباغا سارو dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay warbixin been abuur iyo gaf ah oo shalay in ay laba wargeys oo ka soo baxa dalkaasi Kenya ka qoreen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya. Labadan wargeys ayaa in ayaga oo adeegsanaya warqad la been abuuray oo ay ku sheegeen cadeyn waxay daabaceen warbixin ay ku sheegeen in nisa ay xiriir la leedahay al-shabaab isla markaana sarkaal ka tirsan uu 1.5 milyan dollar uu siiyay sarkaal al-shabaab ah. Qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay aad uga walaacsan tahay faafinta warar been abuur iyo marin habaabin ah oo ku saabsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay daabaceen The Star Kenya iyo Standard Media oo dalkaasi Kenya ka soo baxa. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa intaas ku daray in dowladda Soomaaliya ay si xoogan u naqdinayso weerarada aadka u xun iyo ololaha gafka ah ee lagu beegsanayo dowladda iyo hay'adaheeda. NISA waxaa ka go'an dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa lagu yiri waxayna dambi u aragtaa warka ceebaynta ah ee wareegaya baraha bulshada iyada oo la isku dayayo in la subcad dilo hay'adda. Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo wareejinta iyo daabacaadda wararka la been abuuray ee la xiriira NISA. Waxaan sidoo kale ku boorinaynaa shacabka iyo hay'adaha warbaahinta inay muujiyaan go'aan qaadasho wanaagsan ka hor inta aysan sii faafin ama dib u daabicin wararka marin habaabinta ah ee aan la xaqiijin. ogeysiis ma tahay qof jecel inuu noqdo saxafi ka dhex muuqda bulshadiisa ma doonaysa amiinada saxaafadda inaad khibrad ka korasato mise jeclaan lahayd inaad wax badan ka fahanto barashada iyo aqoonta ku duugan miinada saxaafadda inta aan soo sheegnay iyo in la mid ah. haddaba waxaa kuula diyaara macadka tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan Training Center Journalism. waxyaabaha macadka Magan Training Center Journalism aad ku baran doontaan waxaa ka mid ah asal ahaan saxaafadda halka ay ka timid iyo waxa lagu qeexo taariikhda saxaafadda, qaabka loo diyaariyo loona qoro wararka. sidoo kale waxaa ku sii dheer habka loo hindisay muuqaalada ama qorooyinka cajiibka ah iyo qaybaha ay u qaybsanto saxaafadda. waxaana ku baran doontaa muddo 3 bilood ah waliba adigoo tababar dheeraad ka helayo idaacadda Magan. haddaba isdiiwaangelintu waa ay socotaa. casharada waxaad ku qaadan doontaan qaab online ah. haddaba wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriirtaan taleefan lambarka furaha 26891 ama taleefan lambarka 610
51 ku baro saxaafadda muddo gaaban oo noqon saxaafi khibrad dheer ka haysta saxaafad kaliya adigoo iska diiwaan gelinayo macadka tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan Training Center Journalism. xigmad xurmaysan iyo xaragadii warbaahinta xulway raadiyo Magan adoon xamaasadoon xumaana ku xiiqin bal xiga xaqiiqta sida xaqiirin xalaasha runtan xulkeedu tahay ku xiran ummadeeda xulway raadiyo Magan wuxuun been la xubshiyo Magan kuguma xulatay xulway raadiyo Magan xiisad bartankeeda toban xog marka aad raadisan xeedaan la hubin noqotana Magan kuma xashaasto xulway raadiyo Magan xifaaltan hamoodine xulway raadiyo Magan xulway raadiyo Magan ku xirno adigaba oo xulkaaga ka dhigo xulway raadiyo Magan xulway raadiyo Magan raadiyo Magan Magan raadiyo ugu dambeynna waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena muftiga dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in salaada taraawiixda iyo salaada ciida lagu tukada guryaha sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee SBA ku dhawaaqidan ayaa ku beegmaysay iyadoo muddo toddobaad ay naga xigta bisha barakeysan ee Ramadaan muftiga boqortooyada dalkaasi Sacuudiga Sheekh Abdul Aziz Al Sheikh ayaa sheegay in jameecada salaada taraawiixda aanan masaajidada lagu tukan doonin sanadkan sabab la xiriira talaabooyinka lagaga hortagayo faafida caabuqa coronavirus muftiga waxa uu sidoo kale sheegay in haddii uu xanuunka sii socdo bisha barakeysan salaada ciidul fitrkana lagu tukan doonin in isla masaajidada Sacuudi Carabiya ayaa horay u joojisay in gebi ahaanba salaadaha jamaacada lagu tukado gudaha iyo banaanka labada masjid ee barakeysan ee ku kala yaala Makka iyo Madiina si loo yareeyo faafitaanka coronavirus waxaana ka sii horeeyay amar ahaa inaan salaada lagu tukanin dhammaan masaajidada kale ee dalkaas boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ka codsatay dhammaan muslimiinta ku nool daafaha dunida inay dulqaad muujiyaan isla markaana ay dib u dhigaan qorshahooda xajka iyo umrada ee sanadkan wasaaradda xajka iyo umrada Sacuudi Carabiya ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in corona awgii ay tahay in muslimiinta ay dib u dhigtaan qorshooyinkooda xajka ayaa kamid ah shanta tiir ee islaamka isla markaana la rabo qof walba oo muslim ah oo dhaqaale ahaan awooda in uu hal mar soo xajiyo waa hagaag dhigeystayaal waxaan isla soo gaarnay guntii gunaanadkii barnaamijkii kulan wareedka warbaahinta Magan oo maanta aad idiin soo gudbinaya anigoo Ismaaciil Ibrahim Xasan Sitoosi ah barnaamijka intaynu dib u kulmi doono kan kiisa xiga waxaan idin leenahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh meel waxa tahay hal doora labo ubad kida dawrta haliya dhanka samaha eegta qofa tahay alla daaf meel waxa tahay hal doora labo ubad kida dawrta
علي دك سمايت باتاي أنا تحتاكيتي ما هلايا نهد وحوشي ملولا وصل يرى دول عدنتا مرينك يميدا بدلالكا عيا هدايا إيق مدادا عيا دايقاق يلايابكا أدميقا كالا دوغا شاي عيا دايقاق يلايابكا أدميقا كالا دوغا شاي يتيما هلايا كنا بحوشي مذوبا وصل يرى دول عدينتا مارينك يميدا بدلالكا عيا هدايا إيق مذادا عيا دايقاق يلايابكا أدميا كالا دوغا شايقين عيا دايقاق يلايابكا أدميا كالا دوغا شايقين دمان دمر كدريكا دذلك كل دفتي في عنا أدبتي أذيغا هناكا وشوقي درر كموقا أدشي نسبكو حريرا دمان دمر كدريكا دذلك كل دفتي في عنا أديقا هناكا وشوقي درر كموقا أدشي نسبكو حريرا أدوسان وحتى هاي إذابتا شرفتي دقن حشميتا وانتي هذا اللوغيلكا أكيد لحاليستا دانتا أدوسان وحتى هاي إذابتا شرفتي دقن حشميتا وانتي هذا اللوغيلكا أكيد لحاليستا دانتا يتيما هلايا دبنا دحلتي مذوبا وصل يرى دول عدينتا مارينك يميدا بدلالكا عيا هدايا إيق مدادا عيا دايقاق يلايابكا أدميا كالا دوغا شايقين عيا دايقاق يلايابكا أدميا كالا دوغا شايقين يتيما هلايا دبنا دحوشي مذوبا وصل يرى دول عدينتا مارينك يميدا بدلالكا عيا هدايا إيق مدادا عيا دايقاق يلايابكا أدميا كالا دوغا شايقين عيا دايقاق يلايابكا أدميا كالا دوغا شايقين يتيما هلايا دبنا دحوشي مذوبا وصل يرى دول عدينتا